mudanayaal iyo marwooyin marxaladii la soo maray ee galmudug ay soo martay runtii halkan caawa lagama tiri karo inta u qabsoontay iyo marxashii la soo maray muddadii koobneed iyo mudan baahimidin inaan dib idinkugu celiyo waxaan leenahay guushii la gaaray haynteeda iyo hore uwadideeda sidii aan tii hore xalkeeda isugu tagnay noo garab istaaga aan isugu tagno aan gacmaha isu qabsanno aan hore u soconno insha allah galmudug sidaan sheegay guushii gaartay Soomaali baa gaartay meel fiican bayna marayaan dhammaan qodobadii ama hawlihii noo qabsoomay oo ay ka mid tahay sida haddaba halkan laga xusay oo runtii gabdho qiimo badan halkan ay ka xuseen iyo ragba dhismihii dekedda Hobyo iyo isku tashigii reer galmudug meel fiican buu marayaa reer galmudug taladoodii iyo isu tagoodii iyo inay isku tashadaan iyo inay dekedoodii dhistaan waa ku guda jiraan gaar ahaan ganacsatadii meel walba ay joogto waan la wadaagnay tashigiina waa noo socdaa waxaan sugaynaa mar dhow insha Allah in natiijo wax ku ool ka soo baxdo mar walba qodobkii la xalinayo ama hawshii hortaa loo culusna iskaashi guud oo reer galmudug ay u baahan tahay mid Soomaaliyeed ay u baahan tahay dekedda Hobyo galmudug kuma eka sidaan hore u sheegnay Soomaali bay yaa iska leh Soomaali waa wada maal gashan kartaa cid walbana way u furan tahay waana ku soo dhaweynaynaa hawlahaas reer galmudug hor yaalla iyo wixii u qabsoomay mar raba inaan waqti idinkaga qaado waxaan leenahay intii noo qabsoontana waa isla ognahay guul la gaaray ahayd inta noo dhimanna annagoo gacmaha is haysanna ayaan hore ugu soconaynaa waxaana rabaa inaan idhaahdo meel ay joogaan reer galmudug sidaan mar walba ku celceliyo waa talo u baahan inaan isugu tagno u baahan inaanaan u kala harin u baahan inaan xaqiijino Soomaalina sidoo kale ayaan si guud u leenahay Soomaali waxay wada leedahay wax ma kala lahan wixii meel ka mid ah Soomaaliya u qabsoomana Soomaali wada qabsoomeen sida haddaba ay ku caddaatay ama ay ku caddahay hawlihii noo qabsoomay markaan in yar halkaas kaa uga gudbo in dul istaago mudanayaal iyo marwooyin siaad og tihiin waxaa la dhigay magaalada caasimadda galmudug Dhuusamareeb gogoshii ama madashii Dhuusamareeb 1 Dhuusamareeb 2 oo labadaba si buuxda ilaahay fadligii loogu guulaystay wixii yaraa oo kala maqnaansho ahaa oo ku dhex jiray dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah waa lagu soo afjaray waa lagu soo gabagabeeyey waxaana ballansan oo madlan gogoshii Dhuusamareeb 3 oo ay tahay in go'aamo wax ku ool ah oo waqtiga hadda lagu jiro iyo arrimaha Soomaali hor yaalla looga tashado lagu xalliyo lagu gaari lahaa ayaa noo madlan noo taalla sida og tihiin 15 bisha August waxaan ku kalsoonahay sidii Soomaali loogu soo dhaweeyay caasimadda galmudug sida madaxda Soomaaliyeed loogu soo dhaweeyay caasimadda galmudug in loogu soo dhaweey doono midda taladaas iyadana lagu gaari doono reer galmudugna ay si gaar ah xil isaga saari doonaan meel ay joogaanba waana runtii ku qanacsanahay sidaan kuwii hore loogu soo guulaystay inay tan dambana u guulaysanayso oo u guulaysato insha Allah وشاس 15 bisha August ay ku asaysan tahay la isugu ballansan yahay dhinacyada oo dhanna waa la xiriirnay waana rajaynaynaa in la tixgeliyo
oo la dhowro oo wax kasta wax u dhibi kara laga fogaado oo reer galmudugna gogashooda la tixgeliyo Soomaaliland maslaxadeeda iyo taladeeda la tixgeliyo waa mahad celinayna madaxdii Soomaaliyeed madaxdii dowladda federaalka Soomaaliya madaxdii dowladaha xubnaha ka ah gogosha ee muddada dheer nagala qayb galay tashigii Soomaaliyeed ee deegaanka galmudug joogay waxaan leenahay amaalkaas waa idin haynaa inta dhimanna nala dhammaystira annaga gogosha iyo culayskeeda iyo hawsheeda u diyaarsanay reer galmudugna waxaan leenahay meel kastoo joogtaan ka soo gogosha talo iyo tilmaan iyo duco iyo isgarabtaag uga qayb qaata walaalayaal mudanayaal marwooyin safar gaaban oo safar shaqaalkaan idinkugu nimid kadib sidaad ogtihiin waqti badan kama harin gogoshii waxaan toos u aadaynaa insha Allah caasimadii galmudug iyo galmudug si aan gogosha iyo agaasinkeedii iyo hawsheedii u guda galno adinkana intaan sheegnay waan ka rajaynaynaa waan ku kalsoonahay reer galmudug gudaha iyo dabaddaba waxaad ogtihiin gogoshaas in reer galmudug ay ku dhigeen runtii si aan loo kala harin hadday tahay kuwa dadka reer miyiga ah xoolihii keenay hadday tahay kuwa magaalada degan oo guryahoodii iyo deegaanadii keenay oo martigeliyey 2 maalmood gudahood 1,000 qof oo Soomaaliyeed oo madax iyo isugu jira dadkii la socday madaxda Soomaaliyeed oo qaybo kala duwan ahaa waxaan leeyahay guud ahaan reer galmudug aad iyo aad ugu mahad celinayaa gaar ahaan shacab weynaha caasimadda aad baan ugu mahad celinayaa sida ay isaga xil saareen culays badanna u qaateen mas'uuliyaddaasna ay runtii uga soo baxeen iyadoo sida la sheegay oo la og yahay guryo waaweyn iyo hoteello inaysan ka dhisnayn caasimadda haddana waxaan hubnaa qof walba walaalkeen Soomaaliyeed marti ma aysan ahayn gurigoodii joogeen inay gurigoodii si hagaagsan niyad iyo qalbi samile loogu soo dhaweeyay soo dhaweyntuna guryaha maahane waa diyaarsanaanta Soomaalinimada isjacaylka iyo kalsoonidii loo muujiyay وما تنتهي gobashaas waxaa laga yaabaa dad inay isku dayaan inay ka afmeeshaareeyaan gobashaas reer galmudug saas ay ku taal qof kasta oo masuul ahaa oo Soomaaliyeedna waxaan ka codsannay haddana hortiinaan ka cadaynay inaan rabno inuu nagu tixgeliyo nagu dhowro reer galmudugna ku dhowro Soomaalina ku dhowro oo marka saddexaad tashiga loo soo diyaargaroobo intaas kadib waxaan rabaa halkan inaan ka iraado dhalinyarada wax ku baratay waddanka Turkiga oo halkan gudoomiyahoodii ka hadlay inaan iraado waxaad ku martiqaadantiin caasimadda galmudug ee Dhuusamareeb ee ku soo dhawaada aqoontiina firfircoonadiina iyo inaad u haysaan diyaarsanaan dalkiin inaad dib ugu noqotaan guud ahaan Soomaali gaar ahaan reer galmudug ku soo dhawaada galmudug si gaarana waa idin soo taxgelinayna waana ku soo dhaweynaynaa sidoo kale
dadkan waxgalka reer galmudug meel ay joogaanba waxaan leenahay dadaalkii laydinku yaqaanay firfircoonidii laydinku yaqaanay taariikhdaad Soomaali ku lahaydeen Soomaalina uga qayb qaata arrimaheeda galmudugna si gaar ah uga qayb qaata reer galmudug waa dad ay taqaan taariikhda Soomaalida hadday tahay xorriyaddii dalkan hadday tahay difaacii dalkan reer galmudug taariikh bay ku leeyihiin geesiyaal bay ku leeyihiin dad garasho dheeraa oo u soo halgamay ku leeyihiin markay u dhaqaaqaan inay wax qabtaanna waa dad xaqiijin kara waxa ay rabaan inay qabtaan waxaan rabnaa dadaalkaas iyo waxgalkaas taariikhiga ah oo reer galmudug lagu yaqaanay inay doorkoodii la soo muuqdaan Soomaalina ay wax halkeeda iyo horumarkeeda uga qayb qaataan galmudugna uga qayb qaataan waana hubaan ay uga qayb qaadanayaan meel ay joogaanba waxaan leeyahay reer galmudug guul iyo horumar iyo midnimo noo ballan Soomaali sidoo kale noo ballana inaan dowladnimadeennii adkayno haddii aynay dowladnimada Soomaaliya adkaan inay galmudug wax gaara gaarto la sugumayo waa inay dowladnimada Soomaaliya hagaagto adkaato dowladnimadana la xoojiyo waxaan ku faraxsanahay xafladda lagu soo dhaweeyay inay tahay xaflad Soomaaliyeed madax Soomaaliyeed ka soo qayb galeen shacab Soomaaliyeed ka soo qayb galeen reer galmudug kaliya aanay fadhin taasna waxa weeye sida ay reer galmudug Soomaalinimada u ogol yihiin iyo sida ay Soomaali uga isugu furan yihiin bay caddeyn u tahay aad iyo aad baa u mahadsantihiin waa habeen guuleed oo ku faraxsanahay xafladda sharafta badan lagu soo bandhigay fakarka saliimka lagu soo bandhigay soo dhaweynta qiimaha badan looga soo qayb galay Soomaali oo dhan si siman waxaan leeyahay reer galmudug tan Soomaaliyeed iyo teeniba waa u istaagaynaa waana u taagannahay waana ku guuleysanaynaa insha Allah gacmaha is qabsanno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ميكروفون كفو يس ميكروفون qof walba booskiisa ha joogto madaxweynaha toorte ama kenya ayuu jarayaa qof walba booskiisa fadlan ha joogo lama imaan karo looma soo dhawaan karo kaliya dadkii loo idmaday maahana qofka looma ogolaan madaxweynaha iyo labada gabdhood madaxweynaha iyo laba gabdhood
madaxweynaha space la siiyo madaxweynaha yaa lagu soo shamuumin madaxweynaha gadaalaha looga sikado space la siiyo madaxweynaha dhalinyaro sawir waalidii ogol yahay dhalinyaro laakiin had ku soo gadaal u sikada madaxweynaha sawir waa idin ogol yahay caawa cawadiina reer Istanbul madaxweynaha gadaalaha looga sikado caawa waa cawadiina Istanbul madaxweynaha sawir waa la galay laakiin gadaalaha loo sikado madaxweynaha sawir waa la galayaa waa ogol yahay laakiin tartiiba la rabaa space la siiyo madaxweynaha بليز جيتكو فرا مدحوينه جيتكو فرا بليز هادتك كوربان واحد كل حذر صوركم على دونا